السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal kusoo dhawaada muuqaaladeenii taxnaa inoo ahay oo aynu ku baranay Excel full course qaybtiisii afraad. qaybtan waxaan ku baran doonaa wax loo yaqaano waxyaalaha dul saaran status bar. waxaa dul saaran page layouts, page break, preview, zoom scale. dhanka kale waxaan ku baran doonaa ribbon sida loo isticmaalo. waxaan ku bilaabi doonaa page layouts. page layouts asaga ku dhufo kadib waxaa ku soo bixi doona marka halkan. waa maxay page layouts? page layouts waa halka laga naqshadeeyo page-kaada. tusaale oo kale waxaad rabtaa page-ka inaad u yeesho header, footer oo kale inaad u yeesho oo qaybtan hoose ah. dhanka kale waxaad rabtaa inaad soo geliso option kala duwan. marka si ay optionadaas kugu furmaan waxaad sameynay kuwaan mid kamid ah ee ku dhufanay kan tan ku dhufano option meeshan ugu soo baxay. marka waxaad sameynay kan ay ku dhufan kadib design ay ku soo baxay meesha laga naqshadeeyo page-kaada. design-kaas ku dhufo kadib waxaa haystaa intan option ayaa soo gelin kartaa. meeshan ku banaan, meeshan saddexda meel ku banaan. tusaale oo kale waxaan rabnaa inaan u yeelno page-kan number. waxaa sameyn marka page numbers ayaa dhigay kadib banaanka ayaa ka aadi oo ku yeelaa marka page-ka koowaad ayuu ku leeyahay. dhanka kale waxaa soo gashan kartaa saacad oo kale time hadaad rabto waqtigaad la joogo ayuu kuu sheegaya meesha ayuu kuu qoraya. waqtigan wuxuu ku xiran yahay tan computer-kaada. hadduu kan isbedelo kan waa isbedelaya. marka dhanka kale waxaan haysanaa header ayuu ku leeyahay. header u yeel hadaad rabto ciwaanka adaa u yeelan karto waxaad rabto. tusaale kale Excel noo qor saacadii page-kii iyo header ayaan u sameynay page-kan. page-ka koowaad intaas ayaa ku haystaa. page layouts wuxuu ku tusayaa waxaad arki kartaa page-ka koowaad meeshuu ku dhamaanayo 47 ayuu ku egyahay page-kan. halka kale page-ka labaad wuxuu kaga bilaabmayaa 48. marka page layouts waa halka laga arki karo page-kaada numberka koowaad ilaa meeshuu ku dhamaanayo. page-ka labaad meeshuu ka bilaabmayo meeshuu ku dhamaanayo. page-ka saddexaad waa soo gelin kartaa footer hadaad rabto. tusaale kale footer ayaan u baahan inaan soo gelin meeshan qoraal iska qor meeshaas numberka uu ku leeyahay waxay kala soo gelisay ayaa meesha kaga muuqdo. dhanka kale hadii page-ka labaad aad rabto inaad naqshadeyso qoraal meeshan aad soo qaadato oo aad meeshan tiraahdo cut aad tiraahdo control x markaas la qabato waxaa iman marka page-ka labaad meeshuu ka bilaabmayo 48 ah control v ku dheh. marka waxaad haystaa page-ka labaad meeshaas ayuu kuu muujinaya. waa halka laga naqshadeeyo page-kaada oo aad ka arki karto page-ka meelaha ay ka bilaabmayo meelaha ay ku dhamaanayaan. laakiin meesha ma awoodid in page-kan ay yareyso ama awinaysiiso. waxaad imaanay page break. halkan ayaa page break. dhankan waxaa ka arki kartaa page-kaada. page-kan waa page-ka labaad. tusaale kale intaan waa page-ka labaad. page-ka koowaad kor ayaa ku haystaa kan adaa control karo. tusaale kale waxaa u baahan tahay in page-kan aas leedahay qaybtan ilaa xagga haato qaybtaasna ha soo gasho page-ka labaad. marka haddaa control b as la qabato oo print ay imaato tan aad ka tagtabo print waxaan arkaynaa marka page-keena koowaad inuu saas yahay lambarka uu leeyahay saacadii title-kii footer-kii. dhanka kale waa page-kii labaad ee qoraalkii aan ku haysan. page saddexaad waa u yeelay. marka meeshan waa meesha laga maamul karo page-kaada. sababtaas ku dhimay maxaa page saddexaad waa kaas. haddaa saas u baahnayn waxaa sameynay saas asmeynay. haddaa kaas u baahnayn kaas waa iska bixin kartaa oo marka page-ka labaad kaliya iyo page-ka koowaad ayaa marka meesha ku haysan kartaa. haddaa u baahan tahay kan waa soo kartaa. marka adigu ku xiran yahay waa halka meesha laga control karo page-kaada waa ka yaran karto ka weyn karto. qoraalkaadu dhankan weyn yahay saas ay dhigtaa hoos si lamid ah waa meesha laga control page-kaada. print haddaan ku laabno waxaan arkaynaa page-kii siduu ku soo baxay. page-ka labaad intaan ku haysan saas sidii adiga u jarjarto. tan wuxuu ka saacidi karaa markii oo aad ku dhex jirto daawacada ayuu ka saacidayaa Excel page-kiisa sidii Word oo kale ma waa ka duwan yahay. waa inaad fahanto page break, preview si lamid ah page layouts waa inaad fahanto si oo Excel-kaada si saxsan u daawacdo. dhanka kale waxaan ku haysanaa wax loo yaqaano zoom scale. kan waa zoom out. haddii isaga aan taabno qoraalkii markiina waa naga yaranaya. marka si aad u aragto kaas ayaa taaban plus-ka ay qoran tahay ku dar waay marka waa ku soo dhawaanaya. saas ayaa loo isticmaalaa. dhanka kale waxaan ku haysanaa scroll-kan marka alamka ayaan ku tusayaa. dhankan haddaa u baxday aad rabto dhankan ayaa u soconay inta kana ka wadi soo ku wada. dhanka kale haddaa ku soo laabto aad rabto dhanka koowaad inta ayaa ka wadi. marka waxaa noo xigo wax loo yaqaano ribbon. optionadan waxaa meesha ku saaran dhan waxaa la yiraahdaa ribbon. ribbon-ka asaga kala baxaya wuxuu kala baxayaa tabs. tabka noo furan waa home. tabka noo furan waa home. home-kana wuxuu u kala bixiyay wax loo yaqaano cut, copy, format, painter. intaas kulligood waxay usmaanayeen marka group
groupkaasna waxaa isku yiraahdaa clipboard. kuwaan hadda arkaysana waa buttons ama commands waxa u yaqaanto. si aad u controlsho ribbon-kan waxaa sameynaya calaamadda display option-ka ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanay. kadib adiga ayaa maamuli karo oo qarin karto tabs-ka iyo groups-ka iyo commands dhamaantood waa qarin kartaa. haddaa u baahan taas inaad sameyso waxaa dhihi kaas ayaa ku dhufanay ay dhamaantood waa qariyay. tabs kaliya aad rabto commands aad rabin waxaa sameynay show tabs ayaa ku dhufanay. kadib waxaad arki tabs kaliya. marka haddaa home aan ku dhufano waxaan arkinaa marka groups-ka iyo commands ama buttons waxaad tiraahdo dhamaantood ayaa asoo ku dhufo intooda ay ku soo baxeen. dhanka kale waxaad awood u leedahay in dhamaantood aad aragto show haddaad tiraahdo dhamaantood arkay. haddii aad rabto dhamaantood sida show tabs-ka oo kale iyo commands haddaad rabto intooda waad la arkay hal mar. haddaad show tabs kaliya isaga ayaa ku dhufanay oo kuwa kale aan u baahnayn adale markaas aad furnay. dhankan waa meesha laga control ribbon-ka. casharkeeni afraad waa inuu ku baranaynin assets baa waxyaalaha dul saaran oo ay ka mid yihiin page layouts, page break, preview, zoom, scale, si lamid ah ribbon iyo sida loo controlo ribbon-kaas ayaan ku baranay qaybtan. si aad u socoto casharada kale taxana ah subscribe Muqdisho ICT aragti qabtana noogu reeb qaybta commentiga.